أما بعد ما أنت كليب كان أما مقطعا إن ندوبه صبب لي هاي صبب تصان ربع إن نعديه ورنتي أن هذا لا تعجبي هذا نوجه على استي وحن جوا مال رفاعي لو مقعب أهل قطر يقانو وصعد الله ماذا laga soo bilaabo meesha oo qusuur الزواجات meesha oo rasada ay ka dhacaan laga soo bilaabo ila بداية خريطيات عند الإشارة وصعد دير أو رنتي qofkii socod rabar imaan karo oo de waqti oo subaxdii oo kale imaadada kuleel iska jiro marka dad badan meesha ka socdo soconayo waxyaabaha arkay waxa kamid ah marka oo aad u jecelaystay qof dadka soconaya kamid ah oo kala baxsan yahay kitaabkii quraanka socodkiina ka faa'iideysanayo fi nafs alwaqti wardigiisa maalintii oo akhrisan lahaana akhrisanayo taasaan runtii aad la yaabay markuu waxaan ogaaday kalaam rabbi inaad akhrisid oo meel kasta aad ku akhrisid oo jaanis kasta aad ka faa'iideysatid inay tahay tawfiiq min Allah haduusan ilaahay ku waafajin subxaanahu wa tacaala ma akhrin kartid kalaamkiisa meeshan dad badanaa socdo dadna mushkiladii ku socdaan dadna waxay ku socdaan socod caadi lugahooda ku socdaan qof bahool ku mashquulsan yahay mid Facebook ku mashquulsan yahay mid WhatsApp mid telefoon oo ka gaari waayo dadka la hadlaa telefoon dhagaha ugu jiro oo sheekaysana mid kamid ahna quraanku akhrina wardigiisu ka faa'iideysana marka innal ladina yatluna kitab Allah wa aqamu as-salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur dadka ilaahi kitaabkiisa akhrinayo oo ku mashquulsan dhikriga ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ogaadaano ogow walaalkaygu mar haddaad noqoto min ahli alqur'aan iyo dadka qur'aanka ku dadaalayo oo akhriska badan oo wardigooda qur'aanka yawmiyan kalaam rabbi nasiib ka qaadanayo wax ka akhrisanayo juzba ahaatee ogow inuu ilaahay ku jecel yahay nicmadaas waa inaa ilaalsataa ogow dad badanaa laga xarimay inay akhriyaan kalaamullah subxaanahu wa tacaala ogow dad badanaa qur'aanka ilaahay uu baray ilaahay subxaanahu wa tacaala liajli alqur'aani ay dayaceen ilaahay uu ku baabi'iyey noloshooda waxa weeyaan ilaa asfal السافلين ay noqotay waayo ina hada alqur'aana yarfacu bihi aqwaama wayadacu bihi aakhariin qur'aanka dadna koraa loogu qaadaayo ilaah baa ku sharfa subxaanahu wa tacaala dadna waxa weeyaan markay bartaan ay kor ilaahay subxaanahu wa tacaala u qaado ay quraanka ay dayacaan ilaahay wuu ka aarsanaa subxaanahu wa tacaala quraanka casiiz waay qofka casiiska ahna ciyaar ma qaato qofkan waxa leeyahay ciizat nafsa ku jirto yani laba xogo hadiiba in la ihaanaynayo uu dareemo wuxuu leeyahay waxaan nolosha ma anfacayso aniga kuma noolaan karo arinta waxa leeyahay markaas qofkaas ninkan casiiz waa arusas ay dhahdaa casiiz yani ciizat nafs وإسلو ويهي مرة وإلا الليدو قرآن كمقعيدس وحاكم ذا عزيز مقعيدس وحاكم ذا كريم مركا قرآن وحان دريمة مركا ولا ليال ذاتك قرآن كمركا أخرنا يو قرآن كردقا يو قفك أقول ليتا مركا إلا كل ما على سبيل المثال قفك قوي ماضي وحقي موين ساسا أكتادكم لها soo jooga telefoon ku hadlaysa assalaamu alaykum telefoon oo dhameysane ninkii kula hadlaa warkii asoo wato hatta bil skers ma dhahaysid waa hadli rawaay bilis xoogoo yar isug ma dhahaysid asoo warkii ku wado xamaasaysan leedahay halo assalaamu alaykum sheekh sugsug kasir sug waa aan dhameystay telefoon markuu dhameystay haddana wuxuu leeyahay igu soo celi warkii ninkaas qof la qiimeynay ma ahan qof la sharfay ma ahan marka qofka kale oo qiimaha la marka la kulmaayo oo marka meesha uu ku jiro la galaayaba waxa weeyaan waxa la sameeyaa mobilada silent la saaraa qofkii hilmaaman waa la xasuusay waxa la wariyaa qof mas'uulan la joognaay naga damiye telefoonada wixii hawleena dib u dhigta ilaa warka uu ka dhameeyay waa qof ciizat nafs ku jirto weyn oo waxa weeyaan in la qiimeeyo la rabo طيب على سبيل المثال كلام الله سبحانه وتعالى
ma qofkaas aadan qiimaynayno teleefon ku dul qabanaysid miqdaarka aad siisay maa siisay kalaam rabbi ama markaad qur-aanka akhrinaysid moobeelka saylandaa iska saartaa oo waxa howlahaada dhan aad dib u dhigtaayo ilaa wardigaada ka dhammaysatid ayaad akhrisaa arrintaasi waa muhim la socda waa wax la dareemay mar kastood qur'aanka qiimaysid oo ilmahaaga ay ku ogaadaan oo xaaskaada ay ku ogaato oo lagu dhaho haddii aawi hebel wakhtigii qur'aanka waayo qur'aan u akhriyaa markuu qur'aanka akhriyo lama hadlo markuu qur'aanka akhriyo cid lama sheekaysto markuu qur'aanka akhriyo albaabku wuu xidhtaa markuu qur'aanka akhriyo teleefon looma diro haddii loo dirana maba arkaayaba limaada li'annahu fii ittisaal maca allah اتصال مع الله إله لحريرا مرهدو إله لحريرا سبحانه وتعالى عدنا أوجش مربو ولا أوجيا مركه ما دام وكلام الله وينينا وحويان على سبيل المثال قرية مركه قف قيمة لو كو جوجو كصاب بقضه أهل كنا أوجيين قف كسنة قيمين يست والقولك أدخل جرتد رغم قشقشاي وحلي المهمة وصعد لكن دي قف عادي اسكي هاي وحلي ما يدم ملان ولو قلك راح marka hadii quraanka akhrinaysid ilmaha dhaan hooyo aab mar rabnaa qol ku jira ogala quraan oo akhrinaa kaliya wax kale ma sii hool kale ma haye quraan akhrinooyay ogala bax hoolina ka soo dhameeyst min nooc min al-ihana noqonaysa xaqiiqatan qofka marka quraanka bartay oo qaabkaasi ula dhaqmay kalaamullaahi tabaaraka wa taala sax ahlu quraan weeye laakiin ahlu quraanka darajadiisu way ka hooseynaysaa mar waliba qolada quraanka qiimaysay oo habeenka ku tukanayso oo quraanka qiimo u yeelayo oo idaa quri'a alqur'aan fastami'uu lahu wa ansituu la'allakum turhamuuna ku dhaqmaaya ma gaari karo waayo asaan qiimeyn kalaamullah qiimihi marka quraanka inuu kor u qaado ahayd oo sharaf u yeelo ahayd waxa weeyaan waxay noqonaysaa abadan ma gaarayo sharaftaas maxay tahay asaam isgaarsiin ba quraanka ma qiimeyn qur'aankiina wuu ka aarsana waxa leeyahay khalaas adiga waxa weeyaan adna meeshaada ii joog laakiin qur'aanka ma qiimeysay oo ma sharaftay wax kasta ma ka weynaysay ogow adduunka dhan hoostaada way maana madaxweynayaasha soo waxyaabaha dadku ugu weyn soo madaxweyne ma ahan wallahi way ku imaanayaan qasban anhum waxaad rabtidna way ku fulinayaan la shaka fi dhalik sababta maxay tahay ilaah baaraali ka noqdo subhanahu wa ta'ala معك كلام الله هذا الكد أخرني سوى كلام ربي تبارك وتعالى هدي كلها بوني هاي أضو إلهي لحرير وتلفون خد كجر إلهي لحرير هداد دي كلها بونتا إن أرنك لك دورته فبها فلك ذلك والسمين كرتا هدي أتربتت إن اتصال كاس مع الله أدويني سدنا وهي مركز القرآن كأخرني سيد إله بقولها الله سبحانه وتعالى نقيمينه كلام ربي سان أهلنا قيمة الدنيا آخرة وحان أباهنا هاي إن لا شرفان ربنا إن القيميان ربنا إن الوينيان ربنا إن مقام سرنا لفديسيان ربنا إن وحارنا مركان دن ميلنا قشو أو لو دقاقنا أرنتين وحويان كون فيكون اسكاتان ربنا دنتين كجرتو مركا الدنيا مربتا آخر مربتا عليك بالقرآن هذه الدنيا إلهي وكو حفظنا دتك وكو أدومنا جل جلاله مركز آخرتك تو مركز دورك ugu wanaagsan kalaam rabbi uu qaadanay maxay tahay in ku istaago albaabka jannada oo dadka dhan meesha ay taagan yihiin oo banaankii la taagan yahay la wada qaawan yahay adii kaliga ku geliyo dhar ku asturo awrada asturo awalan thumma rabbul alamin wa kala haddo asaqu shafaa'a اقرأوا الزهراوين حديث النبي محوها يأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غمامتان أو فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما سورة البقرة آل عمران سيدا أيكو صحاب أو كلا إيمان آيان أما والله قوح أو شمبرأة أيكو إيمان آيان إلهي بإله الله سبحانه وتعالى وحين إلهي وهبل ونقرن شيئا وانا بونا برتي وانا كرن شيئا وأغنون أخرين جري صاحبه ونقردكتي الدنيا انت نشوفني إله ما أنت أنا كاكل هيسا نسينك إلهي نمدي إلهي شفاعة القرآن الدنيا وكنا وشهاية ونقول معانا هليسا
sharaf iyo qiimo aakhirana waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa janno kugu geenaya bisababi alqur'aan waa saaxiibka aanaan kaa tegin mar waliba laa fi alqabri walaa fi almaxshari xataa tadkhula aljanna saaxiibkaas saas u wanaagsan adduunkana la joogo wakhti aan siino calaa sabiili almithaal hadduu wardigaaga jus uu yahay 20 daqiiqo waay 20 daqiiqo soo kama maarantid teleefon iyo whatsapp iyo facebook iyo youtube ma ka maarmi kartid 20 daqiiqo inaa meel isku xirtido ilaahay jalla jalaaluhu itisaalkiisa aad wanaajisid soo kaama istaahil rabb alcaalamiin xataa yuslix allahu axwaalaka kullaha qofkii laba jus akhrinayo waa 40 daqiiqo dadka ugu badan meesha ugu fiican weeye dadka ugu badan waxay akhriyaan maalintii 5 juz sabtiyaa la bilaabaa maanta oo kale laa walmuxsanaada laga bilaabo yowm alaxad weeye walmuxsanaatu min annisaa yowm alkhamiis waad dhammaynaysaa yowm aljumca suurat alkahf iyo suurat albaqara iska akhrisanaysaa wakhalaas usbuucii marka waxaad dhex martay kalaamullaahi oo loogu talagalay koonkan dhan ilaahay inuu ku maamulo markaasaad ducaysanaysaa yowm alkhamiis ilmaha iyo soo aroornay marka waxaa leedahay maanta waa yowm alkhatma yalla nadcu allah subxaanahu wa tacaala ducadaada waa mustajaaba yuslix allahu baynaka wa bayna zawjatik ilaahay wuxuu ku islaaxinaa adiga iyo xaaskaaga dhexdiina ilaahay wuxuu ku islaaxinaa ilmaha wuxuu kugu islaaxinaa axwaalaka kullaha taalamaa aslaxta baynaka wa bayna allah mar waliba haddaad haddaaba adiga mar kasta ka fikirta inaad wanaajiso calaaqadii ilaahay dhexdiinaan oo koonkan wixii loogu talagalo khayr oo ilaahay soo dejiya usbuucii andhaha marid qalbigana aad ku qaboojisid adoo ghaafilana aadan akhrinoo qalbigaagoo soo jeeda aad akhrisid la soco noloshaada way macaanaanaysaa waman yacmal min alصaalixaati min dakarin aw unthaa wahuwa mu'min فلنحيينه حياة طيبة مركات كل نحن لا تدري ميسا لاشين كان ومعيها هي مركات دمسلو كليها حياة طيبة ما حد دريميسا وحد دريميسا والله الذي لا إله إلا هو ويدي دتك قرآن كأخرنا والله الذي لا إله إلا هو دتك أقول سعادة بدن غفر حد بدن أدون كان وأهل القرآن وكرن شاقي أهل القرآن وصوبر تماما كرن شاقي وكرق من قرآنك إلهي وبين إيمان الأخرية قرقوا كو أخرية والله من أسعد الناس في هذه الدنيا مرق ما هيسو مشغول ما هيو حنونا مجران إله با إصلاحنا يو المه إله با عافمات أصينا سبحانه وتعالى قرقي شيطان إيو سحر إيو حسد عدو مسو قلايو أمان قبض الدودي ميسو قيل إيو بوق إيو مشغول مجرو هبينك ترتيبة أصيحانيسا عليك بالقرآن تفلح وتنجح في الدنيا والآخرة والله وصرت ودن بيسو وقف مسلم ولا لا شيء حياة مجربة إن لا تجربة وما بحنا والله مجربة حياة طيبة حالتي مركان قرآنك مر اسك أخرين جرني ومر ما أخريا مر والله وحويان maalintan faraxsanahan waa iska akhriyaa maalintan waxa weeyaa aanan rabinna waa iska dhaafaa ayaantan ku nooleen noloshan ku nooleen waan ognahay maanta marka ilaahay uu nawaafajiye rabbul caalamiin inaan quraanka akhrinana waxa weey nolosha lagu jiro waxa weeyaa waa kaafi kala dheeri laajli hada waxaan idinku naseexayna in quraanka la akhriyo barakallahu fiikum assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh